بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا مهد إلهي بإسكال دمانتت إلهي جينا كان كون كان نقدق مسلمين. إلهي وحن ويديساننا خير الدنيا والآخرة إنه نسي إن شاء الله. وأنها سنتين إذن كان سيدا النوسو أجيبتين خير كان أوغسو دقدقتين. إلهي هيدن كسيو أجر ميسانك حسنات كان الله إذن سار إن شاء الله. موضوع محاضرة دينا ما أنت إن شاء الله إنا كهذا نرمنه وحي كساب سنتهي فضل الصدقة، فضائل الصدقة، صدقة فضائل شعيلات هاي. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. aayaadkaas iyo aayaad fara badan oo katiir ah oo haddaan maanta dhan wadnaba aan dhammaynaynin oo ka hadlaaya fadaa'isha ay leeyihiin sadaqada iyo waxbixinta iyo wax dhiibidda. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaad isu kaalmaysaan dad yahow, waxaad isu kaalmaysataan albir samafalka wanaag iyo alla ka cabs. ilaahay wuxuu leeyahay baxsada mimma rasaqnaakum ay min bacdi ma rasaqnaakum. maalka insaanka waxaa laga tusaaya meeshaas inuu yahay wax uusan isaga milki rasmi u lahayn, waa ammaano. adiga waxaa tahay wakiil mustakhlifaa tahay. adiga maalkan waxaa lagugu dhiibay, waxaa la fiirinayaa kayfa tastacmil, saa ugu shaqaysi. min bacdi ma rasaqnaakum waay waxaan idin siinay wax ka mid ah bixiya, idinka ma lihidiine ammaana idinku tahay. waxaa la fiirinaya ma dayace ammaanadaada mase saytaa u gudane. maalkan waa ilaahay wax uu ku siiyey, waa mawhiba min allah. waa marka tasarufkaaga iyo dhaqankaadu ilaahay wuxuu fiirinayaa halkii loogu talagalay ma marisay mase waxaad marisay wadda aan waddadii ahayn. maxay tahay sababta? inta uusan geerida kuu imaanina lagu leeyahay. adiga qof yahow haddaad maanta dhimato maalkaa waa kaa wareegay. waxaad uruurisaba waa ka tegaysaa. qolo aan u soo daalin oo siday ugu dhaqmi doonto iyo siday ugu tasarrufi doonto aanan la ogeynay gacanta u galayaa, oo laga yaababa adigooba godkii lagu geyninba in meesha dagaal iyo fitan ka dhaco. hadhow qofkaas ma daduu ku dili doonaa hantidaas adiga aad tacabtay? ma khamru ku cabbi doonaa? ma xumaanu ku samayn doonaa? ma garanaysid, waana lagu weydiin doonaa. marka inta aysan geeridu idiin imaanin dhiiba. hadhow aad tiraaho lowlaa akhartan, ilaahayow haddaad wax yar dib ii dhigi lahayd, in yar haddaad dib ii dhigi lahayd oon wax sadaqaysan lahaa oon ka mid ahaan lahaa fakun min asaalixiin, dadka wan wanaagsan oo suusuuban haddaan ka mid ahaan lahaa oo wax yar ajashayda lii dibdhig fiicnaan lahayda. laakiin waa xaalad aysan soo celin, aysan waxba kuu tarayn, lianna camalkii waa tegay. daartaasna waa daaruljasaa, daartii camalka iyo shaqada loogu talagalayna way tagtay. waxaa laga yaabaa xataa inay ka dhaxlaan dad aanan kugu xamdinin oon ku dhihin alxamdulillaah
waalidkaya iiga tagay walaalkayaan ka dhaxlay aabahayaan ka dhaxlay hooyaday ka dhaxlay markiiba shafka intuu garaacdo muxuu bilaabayaa xoolahayga dhaxalkayga beed shicira wuxuu ahaa oo ii sheegay ay ku sheegan culimada aan mar walba la yaabo qaliilan ma yahmadannaka bihi waarithun idha naala mimma jama'ta maghnama wala yaaba beedkaas cajaa'ibnimadiisa waxaaba yar uu yiri قليلا ما انتو يحمدنك وكوكو حمديو كويرا الحمد لله قف هبل او والدكي اما walaalkay ama ayaanka xoolahan ka dhaxlay intuu dhahaaba yar markuu ku gaaro ida naala mimma jama'ta maghnama wixii aad adiga uruurinaysay oo keydinaysay markuu ku hodantinimo iyo deeqsinimo ku gaaro oo hanti fara badan uu gacanta ku dhigo inta uu alxamdulillah ku yira ku soo xasuustaaba yar marka maalkii ilaahay ku siiyay oo nimcada ahaa oo aad waxba ka bixinin laga yaabay qof hadhow ma aragtay dhibaato maalkaas ku sameyn doona in gacanta u gasho adigana yoomal qiyaama aad ka dhibaataysanto sadaqada ciyaar maaha sadaqada waxa ay fadaa'isheeda iyo wanaageeda hadii laga sheekeeyo ama aayaadka ama axaadiista ama qisaska wax la soo koobi kara ma sadaqada waa wax aad muhiim ah waa wax aad u qiimo badan ma sameeyaan ilaa in ilaahay u naxariistay ma ogiyo nacam dadkii waan wanaagsanaa iyo saalixiinta isagoo ilaahay amaanayo maxaa lagu amaanay ma waxa la yiri waxay ahaan dad reer fulaan oo reer fulmay wayudcimuuna at'aam waxay quudiyaan tacaamka ala hubbihi ma aha waxay ka dhargeen mana aha waxay ka maarmeen waa jacayl ayaga oo jacayl oo u baahan ayay quudiyeen yay siiyeen masaakiintay siiyaan ay taamtay siiyaan dadka ma aragtay asiiriintay siiyaan qof walba oo insaan naxariis hatta xayawaanaadka naxariis u baahan hatta xayawaanaadka naxariis u baahan waxa laga yaabaa qof asiir ama qof meel ku xiran leeyahay maxaa tuuga maxaa wax loo siina warmay waa insaan ku sadaqaysa adiga ayagoo u baahanay siiyaan markaasay wali waxay dhahaan idin ma aan siinin ajr iyo wanaag iyo abaal aan idin ka rabna idin ma aan siinin wax aan ugu leedihiin oo abaal ah bal waxaan idin siinay li wajhillah waxaan rabnaa bari inay wax noo taraan ilaahi dartiisa u baxsanayna nacam ilaahi wuxuu ka sheekeeyay oo aayaadkiisa uga sheekeeyay qofkii wax bixiya fa amma man a'da dhiiba hantidiisa sirran wa alaaniya ayadoo la og yahay ayadoo la ogeynba oo wattaqa hadana alla ka baqa oo ilaahay awaamirtiisana sameeya nawaahidiisana ka hara muxuu sameeynaa wasaddaqa bil husna waate waxa waa kalimatu tawxiid iyo islaamnimada maxaa loo sameeynaa fasan yasiruhu lil yusra waxaan u fududaynaa wadadii fududayd waate waa ila aljanna wadadu jannada ku gaari lahay ay loo sii xarxaaraya dariiqaas bi ay maxaa yeelay wuxuu la yimid al iimaan wal amal as-saadiq hadana muxuu baxsaday fadaa'ilu amwaalihi u dhiibay marka in xoolaha la bixiyo cagsigeedana fiir kii bakhiilay oo hantida haystay oo gacanta ku dhagay maxaa la yiri asagana waxa loo fududayninayaa lil usra waati usri waa midii asagana wadadii xumayd ee ku gaarsiinaysa ila jahannam ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu uga sheekaynayaa aayadan lan tanaalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun samafal iyo wanaag iyo khayr maba gaaraysaan ilaa aad ka bixisaan waxa aad jeceshihiin maalka aad ka bixisaan adiga oo saxiixun saalixun adoo caafimaad qabo wanaagsan shahiixun hadana bakhiilaayo waxalka maradan waa qurxan tahay shaygan waa cusub yahay waxaan waa lacagtan waa badan tahay maxaa fasha ma dhiibta adigoo leh oo caaqiba way ay sakaa ahaan naftuna qarqarada ku imaanin lagaana xoogin laakiin saxiix ah saalix oo wanaagsan oo ku faraxsan hadana shahiixo maalkii la jeclaysanaya intaad ka bixinaysaan samam falba ma gaaraysaan Allah subhanahu wa ta'ala li aayada markay soo degtay saxaabiga Allah ka raal noqday Abu Talha ayaa wuxuu yiri waa Sulaym sawj Sulaym wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam u yimid markaas uu ya Rasuulullah hadhihi layla waxa kugu soo degtay aayadaas kugu soo degtay anigana waxaan u jecluhu yiri hantidayda uguna wanaagsan beertan la yira biruha oo waxay ahayd beer timir iyo ma aragtay aad u fiican oo qurux badan oo hadana biyo macaan laho
aanan ka fogeyn masjidu nabiga sallallahu alayhi wasallam markaad ka soo baxdaba beertaan masaajidkiiba horaad ka gali ilaahay dartiisaan u baxsado yiri ayadaan u jecelahay waana baxsado dhahay ee maxay kula tahay xagee aan dhigaa yiri halkee ayaan dhigaa oo ku haboon inaad ila taliso markaasuu yiri waxaad samaysaa aqaaribtaada bani camika iyo dadka ehelkaaga ah u qayb marka meesha maxaan ka arkaynaa iyadoo sadaqadii ay wanaagsan tahay haddana inay qaraabada iyo riximka ay sii leeyihiin fadli iyo fadiilo gaar maxaa meeshaas ka heli waxaad ka helaysaa waa ajarkii sadaqadii iyo ajarkii oo rixim xiriirinta iyo qaraabanimada aad ka helaysaa muslimiinta caam ina wax lagu sadaqaystana ma aha mid la diidaa laakiin sadaqa maxaa ugu khayr badan waa midka ii sheegay qofka kuu dhow oo riximka oo qaraabada oo walaalka oo baahan oo dhibaataysan aad siiso laana maxaa yeelay asaga waa silatu rixim waayo hawshiis ajarkii guudna waad leedahay kii gaar ahaaneed oo qaraabadana waa leedahay marka saxaabatu rasuulillaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh dad saasay ahaayeen waxay jeclaayeen wax alla wixii markuu soo dego waxyigaba inay dabaqaan oo ay fuliyaan annagana yaa qudwa noo ah yaa uswa noo ah yaan ku dayanaa iyaga hormuud noo ah saalixiintii hormuud noo ah ambiyadii hormuud noo ah dadkii waan wanaagsanaayo dhan hormuud noo ah oo inaan ku yara dadayano aan ku dadayano isku duduwno la'allahu yantafa'una inuu anfaca laga yaabo ama qof naga mid uu anfaco nacam ilaahay markuu ka soo sheekeeyay almuhaajiriin wal ansar oo uu walaalay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam muhaajiriintii la guryahoodii laga soo bixiyay ee banaanka loo soo dhigay markasta gaalada kama suusho inay dadka muslimiinta ah ay ma aragta guryahooda ka qaxiso inay ma aragta guryahooda iyo hantidooda iyo xoolahooda ka qaataan oo ay ceyrsadaan ma ka suulaan ay madiina tagaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam shayga ugu horeeyay oo uu sameeyay maxay ahayd inuu aakheeyo oo walaaleeyo muhaajiriintii ansaartii oo ii sheegay uu ka dhigo walaalo sax iyo inuu dhismihii masaajidka iyo uu galo maxay ahaayeen muhaajiriintii ma ahayn dad hantida walaalahooda boob ku haya oo ma aragtay cadaawatnimo iyo colaytan qaba saxaabigii cabdiraxmaan ibn awf saxaabigii lala walaaleeyay ayaa wuxuu yiri aniga waxaan uu yiri magaaladan madiina dadka ugu hantida badan laba beerood basaatiinu tamra waxay ahaayeen dadka beeraha timirta la dadka ugu hanti badan ayay ahaayeen reer madiina wuxuu yiri laba beeroodna waa leeyahay laba islaamoodna waa qabaa beerahaas wuxuu yiri fiiri tii aad rabto qaado dumarkana soo fiiri tii aad rabtaan wuxuu yiri ku dalaaqayo kadibna aad markay ka baxday ciidada guursatay markaasuu yiri walaalow baarakallah allah ku barakeeyo maalkaaga iyo ahalkaade dulluni ala suuqin yiri aniga nin ganacsiga ku fiican oo ganacsiga aqaanaan ahay marka suuq itusoo dhahay suuq iyo tusay wax yar oo ganacsaday wuxuu yar urursaday ma aragtay xoogaa meher uu ku sameyn karo ma aragtay wuxuu meher ku sameysan karo nacam sidaas markay dhacday ma ahayn marka hantida walaalkiis nin boobaayo oo cadow ku ah ayagana say ahaayeen nimankii ansaarta ah ayagana maxay ahaayeen ma dad walaalahood ayagana cadow u qabay ahaayeen maya wayu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasaas naftooda waxay u doorayeen nafta walaalahood ayaga dhibaataba ha ku jiro hal burosoor haday haystaan waxay jeclaayeen midka walaalkiisa inay siiyaan oo ay ayagana ii sheeg naftooda dhibaato isugu jirto walladina tabawwa'u daara wal iimaana min qablihim walla amaanay maxay jeclaayeen man haajara ilayhim culays uma arkaynin dhibaato uma arkaynin baladkii nagu cariiriyeen uma arkaynin sicirkii nagu kiciyeen uma arkaynin waana dhiban uma arkaynin bal waxay u haysteen inay tahay fursad dahabi ah oo ilaahay soo mariyay waaya waxayna waliba ahaayeen wayu'thiruna ala anfusihim naftooda waxay u baahantahay uga doori jireen dhibaataba ha ku jirtee dadkaas laga soo sheekeeyay ama muhaajiriinta ahaa ama ansaarta midba midka kale walaalkiis waxa uu jecel yahay iyo waxa uu u baahan yahay raba inuu badiil u sameeyo oo u fuliyo fa ulaa'ika kuwaas ayaa maxay yihiin humul muflixuun liibaan iyo khayr adduun iyo aakhiraba gaaray marka ma la iska helaa liibaan adduun iyo liibaan aakhiro may adigoo qasnadaha kuu buuxaan adoo akoonaha kuu buuxo adigoo ma aragtay xoolo kuu yaalo laga yaabo qofka walaalka ah ama qaraabadaada ama muslimiinta
ama dariskaaga in ay dhibaataysan yihiin inay mushkilaysan aadna og tahay hadaad wax yar oga soo bixisana uu ilaahay kuu daban jibaarayo alxasanatu bi'ashri amthaliha waa xaqiiqo $1 hadaad bixiso 10 hele 10 hadaad haysana 100 hele 100 hadaad bixisana 1 helaysaa waa xaqiiqo waa yabo min Allah waa meel aadan ka filaynina kaaga iimaanaysaa meel aadan ka filaynina kaaga iimaanaysaa kayd aakhira iyo adduunna waa hele cagsigeeda marka ka war cagsigeeda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay yoom kasta oo waa kasta oo ilaahay uu soo bariyo waxaa soo dega 2 malaga soo degta labadaas malag maxay sameynayaan midna waa duceeya midna waa habartama maxay dhacaan kulla yoom oo طلعت عليه الشمس ملكان ينزلان ير النبي صلى الله عليه وسلم maxay leeyihiin mid kamida wuxuu leeyahay allahumma a'di munfiqan khalafa ilaahu midka wax baxsaday oo walaalkiis deeqay oo dadka muslimiinta ah baahidooda og ilaahay waxaad uga dhigtaa khalafan kayd uga dhig waxaan uu bixinayaa wax ka tagay ma aha waa wax account ilaahay ugu jiro oo loo sii laablaabayo ilaa 700 loo gaarsiinayo ka kalena maxaa la leeyahay fa yaqul al-aakhir malag galana wuxuu leeyahay allahumma a'di mumsikan talafa ilaahu midka ku dhagan oo bakhiilka oo gacanta adag ilaahu maalka ka dhamee malag ducadiisa maxaa way waa mustajaaba marka maalin kasta aruur marka dambeeto doontii la degtay hebelkii la degay kii ay yeelay xuquuqaadkii lagu lahaayo farada ka badnaa oo waajibaadka aanan ahayn xataa maaragtay sadaqadii ahaa iyo rixim xiriirintii iyo qaraabadii iyo maaragtay sadaqadii uu ka tagay markaas ilaahay masiibo ku sallida maalkiis waa khasaaray maxaan ku raraa markabkii ka degay waa laga dhacay maxaan ku iraadaay qolaa si uga afgambisay maxaa ku dhacay wax kale kuma dhicin walaalkiis ama dariskiisa ama muslimiinta guud ah dadkii ihtiyaajaadkii dhibaataysanaayay u fiirinaayo markaas wixii ay ku lahaayeen xuquuqdii markuu gabay malaa'igtii habaaraysay ankaartoodii ku dhacday xoolihi ilaahay ka dhameeyay malagta waa mustajaaba dacwadiis marka meeshaas waxaad ka arkay muhiimaday leedahay kii bixiyayna maxaa la yiri ilaahow kayd iyo dukhri uu sameey account ay ugu jirtaa 10 markuu diraba 100 meel u taal 100 markuu diraba 100 meel u taal 100 markuu diraba milyan meel u taal waa buuray u noqotay markuu cimrigiisa uu wax bixiyo ka war maxay xoolahaas noqonayaan waxaan la soo loodin karin marka waxa waa sadaqadana waxay tahay waxay sameeysaa tudfi qadab ar-rahman arad ilaahay damisa cadaabka lagaaga xijaaba cimriga lagu dheeraya xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofkii raba in ma aragtay cimrigiisa loo dheereeyo ajashiisana loo dibdhigo falyusil rahima oo ajasha ma waa qorantahay ma waqti aan ahayn waqtigii aad dhimane abadan saas ma aha cimrigaagi konton ba Allah ka dhigay 40 ba Allah ka dhigay wuxuu ku noqonaa cimri 100 jir inta uu qabto kale uu qabto cimri baraka leh oo khayr leh oo faa'iido leh uu ku noqonaya marka muxuu sameeynaa qofkaas cimrigiisa Allah u barakaynaya hantidiisa Allah u barakaynaya qofkii raba falyusil rahimu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam marka waxaad arkay dad umada intay u gargaar oo umada u kaalmeeyo oo umada dhaqaaleeyo ilaahay barakeey oo hebel ama heblo lale muxuu ku helay fadligaas wuxuu ku helay waa intuu dadkaas dhibaataysan oo ihtiyaajaysan oo gacanta u fidiyay asagana ilaahay cimrigiisa iyo waqtigiisiba u barakeey markaas wuxuu noqday 1 sano qof nool oo kale wuxuu qabto waqti yar ku qabanaya marka waxyaalaha fadaa'isha ah iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin aayaadka iyo ahadiistii markaan soo aragnay fadaa'isha ay leeyihiin wax laga sheekeyn karo ama wax waqti lagu soo koobi karo ma sadaqada waxay sameeysaa tamxul khadaaya fawaa'ideeda waxa kamid ah khadaaya iyo dunuubta qofka uu leeyahay ayay tirtirtaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay sadaqada waxay tirtirtaa khadii'a ayay tirtirtaa sida ma aragtay dabka uu naarta u damiyo kale ayay u damisaa khadii'aadka iyo gafafka qofka uu galo maxay sadaqada sameeysaa waxay ka dhowrtaa taqyi min an-nar naarta lagaaga ilaaliyaayo ilaahay sababteeda oo ma aragtay kaaga ilaahay xadiis nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay fattaqun nar walaw bi shaqqi tamr war naarta iska jiro iska ilaaliya oo isaga dhowra timir jabkeed ba Allah ka dhigay timir gabalkeed ba Allah ka dhigay oo adiga aad yasaysido isleedahay waxaan maxay ku taraysaa
ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga yaaba adoo ikhlaas u haddaad u bixisay inuu sababteeda naarta kaaga ilaaliyo. waxay ka mid tahay min fadaa'il sadaqa, fadaa'isha sadaqada. mutasadiq qofka wax sadaqaystay fadiilada kale uu helayo maxay tahay? mutasadiqa fii dilli sadaqati ayuu harsadaa yowma alqiyaama, maalinta qiyaamo sadaqadiisa harkeedu harsanayaa. fayaquulu rasuulu salawaatu ullaahi calayhi wasalam wuxuu leeyahay kullu mri'in fii dilli sadaqatihi xataa yaqdiya bayna annaas. qof kasta sadaqadiisa harkeedu harsadaa ilaa ilaahay khalaa'iqda uu kala xukumo. qofkii aan waxba sadaqaysanin ka warrama, subxaana allah. marka qof walba harkiisa, geedaha way kala har wanaagsan yihiin sooma, way kala hoos fiican yihiin. sadaqadaadana inta aad baxsato harkeeda hadhow kuu noqonaa yowma alqiyaama, ilaa ilaahay khalaa'iqda uu kala xukmiyo. addoonkaas wuxuu yidhi nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu har oo dallad hoos u ah maalinta aysan har jirin fii dilli sadaqatihi, sadaqadiisa hooskeeda. waa min fadaa'il sadaqa, waa arrin caad u cajiib ah oo ilaahay nimuu jecelyahay uu waafiyo. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiis kaleeto sabcatun yudiluhum allah yowma laa dilla ilaa dillu. 7 ayuu ilaahay u hareeyaa maalinta maxsharka la isa soo taago aysan har jirin ilaa harka ilaahay ma ogiye. maxaa ka mid ahaa maxalu shaahidka hadda aan rabno maxay tahay? waxaa ka mid ahaa sadaqada waay soo maaha. nacam, sadaqadu maxay tahay? waa qof wax baxsaday oo wax dhiibtay, midigtiisa waxay bixinaysana aysan bidixdiisa ogeyn. marka midigtiisa waxay bixinaysa ay bidixdiisa ogeyn ma ahan, laakiin waa majaas soo maahan. heerka uu gaarsiiyey ikhlaasnimada iyo suu u qarsanaayo. nacam, sadaqada waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood in la bannaan dhiga inay qurxanta ay habboon tahay, marna in hoos loo dhigo. hadba waxay ku xiran tahay munaasabada iyo makaanka. in tubdu sadaqaat fa nicmaa hiya wa in tukhfuuha wa tu'tuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum uu yiri ilaahi subxaana wa tacaala. in tubdu haddaad bannaanka dhigtaan oo tiraan war aniga halkaasaan bixiyey, war yaa dadkaan wax ku taraayo, war yaa soo yeelaayo, ood rabta dadka in la soo kiciyo dadkaas ay kugu daydaan, waa midaas calanka ahaa fiican. waayahay wa in tukhfuuha haddaad qarisaan oo watu'tuha alfuqaraa dadkii u baahnaa iyo u dhibaataysnaad siisaanna fa huwa khayrun lakum, sidaas ayaa idiin khayr badan. marka labadaba lama diidana, bandhigna lama diidana. nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu samayn jiray markii dad u yimaadaan oo dhibaataysan oo kaleeto, halkaas intuu ku fidiyo wuxuu dhihi jiray war yaa wax baxsana. markaasuu qof wax badan keeni jiray, qof wax yar keeni jiray, mid gacantan wax la ego wuxuu keeni jiray timir, mid wuxuu keeni jiray wax culayska adyaaba qoortiisa dahabka wada keena. qof walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u baxsado oo qalbigiisa ay tahay iyo niyadiisa iyo ikhlaasnimadiisa uu ilaahay u qaadaya. marka sadaqada loo baxsado alla dartiis waxaan fadaa'isheeda kamid oon aragnay inuu qofkaas harka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu harsan doono maalinta aysan har jirin. nacam, ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wax sadaqaysta muxuu ugu yeeray? wuxuu ugu yeeray nadaa biliimaan. mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum kamathali xabba ambatat 7 sanaabil fii kulli sumbulatin 100 xabba. wuxuu la mid yuhu yiri sidii ma aragtay dadka wax baxsanaya, qof ma aragtay hal xabo mir ah qof meel ku ritay, markaasay maxay u dhashay 7 sanaabil, 7 sabiiladii haddana suuladii haddana sii kala faafa maxay dheh ilaa 700. $1 ama 1,000 waxaa laga yaabaa intaasoo laalaab inaa ilaahay ku dhigo ilaa ilaahay wuxuu doonaba. sadaqada fadaa'isheeda waxaa ka mid ah in ilaahay uu ku daweeyo dadka jiran. waxaa lagu daweeyaa sadaqada. xadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay daawuu mardaakum bisadaqa. dadka idinka jiran sadaqada ku daaweeya way ku caafimaadayaan. xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa illaa waxyun yuuhaa. nacam, waxaa laga yaabaa qofkan bixidda uu baxsaday iyo ducada qofka maskiinka ee muxtaajaysan in ilaahay uu aqbalo. marka waxay daaweynaysaa mardiga, xanuunahay daaweysaa. waxaan maanta ka hadlayna waxay ahayd waa fadl ama fadaa'isha sadaqada ay leedahay. carada ilaahay damisaa, naarta lagaaga ilaaliyaa, maalinta qiyaamay har kuu noqotaa, maradka iyo xanuunka iyo culayska ayay daaweysaa. nacam,
waxaa kale oo sadaqada ka mid ah waxyaalaha fawaa'ideeda ama ma aragtay wanaageeda ah qissa oo ma aragtay ayaa waxay ahayda la yiri nin wuxuu ahaa caruus ama aroos uu ahaa habeenkii ugu horeeyay laylatul ursihi habeenkii arooskiisa waxaa la yiri ridda loo soo gargaraacay qof maskiin oo ixtaajaysan albaabka u soo gargaraacay isagoo cashadii iyo adduunkii iyo wixii iyo qurquruxdii ay haweenaydiisii markaa loo diyaariyay u soo saartay miiska inaa wax cuna rabo haweenaydii ay ridda ka furtaa la yiri markaasuu yiri yaa yahay waa saa'il qof saa'il oo wax barsanayo dhibaataysan aminka habeenimada waxa soo kiciyo waa dhibaato qof iska socdo oo gacanta taaganaya ma jiro calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu nacam ma jiro qof iska soconaayo iska socda habeenimo guuraayo ilaa dhibaataa gurigiisa ka soo kacis markaasuu halkaas intuu xabadku ku dhago waxaa la yiri ninkii furdufurdeewu naga tag hanaga qasin oo albaabkan qab ku siistoos waxaa la yiri uu ka xirtay kolkii la rabay waqtigii hurdada inuu hurdo ayaa waxaa la yiri albaabka intuu iska furo iridda ka baxay ninkii maskaxdiisii aba la galayba gabadhii say u sugaysay maba soo noqonin ninkii ma soo noqonin 7 dambe gabadhii nin kale iska guursaday ninkii sidii lagu waayay muddo markay ka joogto ilaa waqtiga ilaahay doono ayaa waxaa dhacday oo sawj kaleeta gabadhii guursatay yaa haddana biqudratil jabbaar isla leylkii oo aruuskeeda ah ayaa haddana sidii markii cuntada loo soo diyaariyay waxaa la yiri albaabka waxa u soo garaacay haddana qof waayo way furtay marka waa qof saa'il ah ayay ku tiri waa qof saa'il ah oo waa baahan yahay ninkii wuxuu sameeyay wax alla wixii miiska saarnaa iyo cuntadii iyo macmacaanka iyo quruxdii iyo wixii intuu qaado ninkii maskiinka u geeyay cun u yiri waxaa markuu soo noqdo uu u yimid haweenaydii ooynaysa markaasuu yiri maxaa ku helay markaasay tiri ma taqaanaa qofkan saa'ilka ah ee aad cuntada u geynayso markaasuu yiri may waxay tiri 7 intaasoo muddo ah ninkii aniga habeenkii aan la guri garay saas ahaa oo la waayay ayuu ahaayay tiri ninka hadda caawa saa'ilka laa hawla walaa quwwata illaa billaahi al-aliy al-adiim ninka hadda saa'ilka ah ee muxtaajaysan ee baahan ee habeenkeenan caruuska ah cuntada raba waa ninkaas gabadhi way iska oys laana maxaa yeelay waxaa dhacay wax markii adoonka ilaahay uu gacanta u horsaday ayuu ku jaajees hatta waxaa wanaagsan hadaada wax siinaynin inaad tiraa qawlun macruufun khayrun min sadaqatin yatbacuha adaa yiri allah subxaanahu wa tacaala hadal wanaagsana waxay ka fiican tahay sadaqa aad dib raacsiiso iimaankaad leedahay naga tag maalin walba waa nagu soo taagan tahay irdaha noo taagan tahay qof hebel maxaan ku iraahdaa waa i dhibay maalin walba albaabku ii taagan yahay waa nagu soo socdaa kan hadduu ilaahay gacantaada wax gelin lahayn adoon yahow lagumaba dhibeen hadduu ilaahay fadli iyo manadiisa iyo nimcadiisa uu ku siin lahayn laguma imaadeen waxa lagugu imaanaa ma garane waxa lagaa soo istaaga ma taqaanaa waa ilaahay manadi iyo galadu adiga uu nimcada ku siiye adoonka uma waayeen bal adaa la rabaa lagugu jaribaya bal adaa lagu rabaa in lagu fiiriyo nimcada ilaahay inaad ka shukrinaysid iyo inaad ku kufrinaysid haddii aad nimcada ilaahay ku xamdisana la aziidanakum ilaahay waa noo siyaadina haddii kaleeto soo ma ahan nimcadaas waa lagaa baabi'inayo malag iyo waatan ii sheegay malaa'ig subax walba la soo dejinayo la leeyahay ilaahu ka baabi ilaahu kana u dhamaystay ninkii labadaas adoon maxay ku kala gadisnaayeen oo cajaa'ibka midna nimcada ilaahay siiyuu ku shukriyay gartay xawaa'ijta iyo dhibaatada dadka ma aragtay masaakiinta iyo baahidooda wayudcimuuna dacaama calaa xubbihi waay asoo jecel oo macaankii iyo wixii iyo arooskiisii loo soo dhigay uu bixiyey midna wuxuu diiday naftiisaasaa shahwaadkeesaas tuso wuxuu rabaa inaan laga qasin baahidii dadka kaleeta wuu iloobay markaasaa ilaahay imtixaan ku salliday taasna waxaan arkaynaa inay iyadana arrin cajiiba tahay sadaqada waxaa ka mid ahaa la yidhi cajaa'ibta ay leedahay iyo waxyaalaha waa wanaag badan iyo fadaa'isha laga helo waxay leedahay la yidhi karaamatun baahira karaamo iyo sharaf ayay leedahay maxaa kaloo ka mid ah waa ijaabatu dacwa in ilaahay dacwadiisa ajiibo sadaqada qofka sadaqada badan ilaahay mustajaaba dacwo inuu ka dhigaa laga yaabaa waana min fadaa'il sadaqa nacam maxay tahay nuakhiru al-ajal waa tii xadiiskii aan hadda kasoo sheekaynaynay oon lahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii raba in ajashiisa loo dibdhigo
qaraabadiisa xiriiriyo maxaa kaleeto wa tabaaraka waxa ilaahay u barakeeyaa oo u wanaajiyaa cimrigiisa iyo maalkiisa ilaahay u barakeeyaa waxay kamid tahay ayadana min fadaa'il sadaqa nacam qisa kale ayadana oo ma aragtay aan soo guurinay waxay leedahay sadaqada cajaa'ibta ay leedahay waxay ahayd nin inuu ka sheeganayo gabartiis oo yar halka dhuunta ilaa 7 ay ka sheeganayso ilaa ay adibadii iyo dhakhaatiirtii ka qoosteen in ay ma aragtay caafimaadkeeda iyo xaaladeeda ay dhaheen wax rajac male 7 lagu celceliyay ilaa markii dambeeto uu sadaqaystay uu sadaqa baxsaday oo faafaahu Allah ibnataha gabadhiisina ilaahay u caafiye marka fadaa'isha iyo fawaa'id ay sadaqada leedahay wax la soo koobi karo male waxay kale oo faa'iidadeeda kamid ah tanmil maalkay barakaysaa maalkay badisaa maalka ma nusqaamiso nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ma jirto sadaqo ma naqas ma aragtay sadaqada min maal shay kama nusqaamis ilaa shay maalkii laga bixiyaba uu barakoobaa oo wuu siyaadaa nacam maxaa kaleeto oo kamid ah waxyaalaha sadaqada fawaa'ideeda kamid ah fawaa'ideeda waxaa kamid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala tudfac ilaahay wuxuu ka daafacaa oo uu ka ilaaliyaa waqaayo ay uga noqotaa iyo gaashaan saaxibu sadaqa albalaaya balaayada iyo mashaakilada iyo dhibka sadaqada waxay kaaga noqonay gaashaan waxay kaaga noqonaysaa ma aragta astur waxay kaaga noqonaysaa difaac waa lagugu waardiyeynaya xirsi ay kuu noqotaa soomaalida waa dhahdaa sooma inta wax aruuriyaan xirsi marka waxaa waaye waa dad ma aragtay markaad fiirso xirsi nabadgelaalay dhahan sooma waa la aruuriyaa marka ii sheeg waxa laga yaabaa dad dhibaataysan in markaas loo aruurinayo nacam waa xirsi waa dhufays waa marka balaayada ay kaga xijaabtaa ilaahayna difaac ayuu uga dhigaa sirta ay leedahay sadaqada waxaa kamid ah qadab الرحمن تطفئ قضب الرحمن إلهي عردي سيد مساء عرد إلهي أو أي دمسنا وح عجائب معه وحي كليته صلة الرحم قرابة حدو قفك الصدقة أو بحصده قرابة كوسو دواني دتك كود عيناي محاواي تزيد في العمر عمرك أنا وبطا عمرك بدأ شدي سماع إن عمرك أجلك القدرايو وأتنقص شكين عمرك يساوي نقنايا عمري qofka boqolka sano wuxuu qabanayo kala uu qabto noqonaya cimrigiisa ilaahu barakeynaya afdalu sadaqaat sadaqa la baxsada kuwee ugu fadli badan sadaqa waa la baxsadaa kuwee ugu fadli badan waxa ugu fadli badan kafaalatul yatiim agoonta oo la kafaala qaado waxay kamid tahay min afdali sadaqaat sadaqooyinka kuwooda ugu wanaagsan dada mas'uulka ah qofka mas'uulka ah ilaahay baa ka qaatay marka kaafilul yatiim كهاتين في الجنة يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة مركاسون لبدي سفروساس سجود الجيه مركا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنة مركاساس رفيق ولا نقطين فضلك كبدا ولا رادنا يكوها ما مجرن مركا كافل اليتيم عيار معها محاك لو كمد وحاك لو كمد الصدقة كو وناكسن وحاك كمد وبناء المساجد إن مساجد لدس maxay ku taraysaa waa sadaqa jaariye ajarkaas dadka ku tukada iyo kuwa ku tukan doona iyo kuwa ku duceysan doona iyo kuwa quraanka ku akhrisan doonaba ayaga adigana wuu ku soconaya maxaa kale oo kamid ah tawfiirul maa ina biyo ceel kalnaal kali waxay noqotaba ceel am wax ay biyaha dadka ka cabaan oo ayagana dadka biyaha dadka siiya ayadana waa sadaqatu jaariye waxay kamid tahay min fadaa'il sadaqa waxyaalaha sadaqada ugu wanaagsan ay kamid tahay yaa la siinaya almuxtaajiin meelaha ugu dhibaataysan ee garigo'anada ah ee biyo la'aanta ah maanta tuulooyinka qaar laga yaabo 15 kilomitir 20 kilomitir in ama daameer loo rarto ama qofkii waayay xataa dushiisa uu ku aado halkaas qofka biyo ka doonanayo hadduu tuuladaas ama meeshaas uu geeyo qaryadaas biyo uu geeyo ka waran oo iska cabaayaan ma u malaynaa xataa shibiraha iyo bahaa'imta iyo dugaagaas cabaayo sadaqa uu ka helayaa ajarkiisana wuxuu noqonayaa waa mid aanan ma aragtay go'ayn inuu noqonayaa hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba waxyaalaha waxay kamid tahay camalul ibni aadan
waxyaalaha uusan hadduu dhinta ka go-ayninay ka mid tahay camalka ibni aadamka waa go-aa oo inqadaca camaluhu yiri nabi sala allahu calayhi wasalam ilaa saddex arrimood saddexdii arrimood maxaa ka mid ah saddexdii arrimood maxaa ka mid ahaa waa cilmu naafic cilmi oo yuntafac bih cilmi naafic uu ka tegay oo lagu intifaac sadaqa jaariya nacam sadaqa jaariyadii waa faran badan tahay ama waqfa ha bixiyo midka saddexaadna muxuu ah waladu saalixun yadcuu lahu nacam oo u soo ducaynaya marka midda maxalu shaahidkeena maanta maxaa waaye waa sadaqada soo maahan sadaqa jaariya ama ceel uu qoda ha ahaato ama webi uu ahaato ama dhul uu waqfada ha ahaato ama masaajid uu dhisa ha ahaato ama madariso uu dhisato ayu shay wax un laga dhaxlo oo sadaqa ah ayadana waxay ka mid tahay min fadaa'il sadaqaat meelaha amaakinta lagu bixiyo sadaqada meelaha ugu wanaagsan ay ka mid tahay waa soo sheegnay qaraabada oo la siiyana waxay ka mid tahay ayadana min fadaa'ili sadaqaat ayay ka mid tahay in dadka qaraabada ah ayagana sadaqada wax laga siiyo marka wax la soo koobi karo iyo wax ma aragtay mawduuc lagu soo ekeyn karo ma aha sadaqada iyo fadaa'isheeda Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaad samaysaan ilaahay ka cabsada fattaqullaha mastadactum adoomihi alla ka cabsada maxaad samaysaa wasmacuu wa adiicuu maqla oo alla adeeca wa anfiquu bixiya khayran lianfusikum naftiina taasaa u khayr badan waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun bakhiiltinimada shuxa waxaa la yidhaahdaa la yidhi bakhiilnimo waa kasii liidataa xataa shuxnimo waxaa waaya la dhawaa qofka waxna aan bixinin in wax la bixiyana aan ogolayn waxaa laga yaabaa qof asaga wax ma bixiyo waay gacmaha ku jafka dheheen waay wuxuu arkaa dad wax bixinaa allah kibira hebelka batay maalin kasta markuu arko war xoolaha tartiib asaa hebelkaa lacag badan kanay tahay waa bakhiil jeebkiisa wax kama baxo jeeb walaalkiis wax ka baxana ma rabo asay dhibi asaa daqanayo kaas waxaa la yidhaha shaxiixa la dhahaa bakhiilka waxaa la dhahaa yaa qofka maalkiisa kaa haysto ama shaxiix waa midka waxna bixinin waxna laga bixinin waa khayr beela waa mid aanan tala lahayn ma ogola in dadka muslimiinta la saacido asna wax ma saacido marka shaxiix iyo bakhiilba Allah naga kaafiyo ilaahay idinkiis kuwa ilaahay dartiis wax u baxsada oo ikhlaas lana Allah laga dhigo waayahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay hadii aad alla ka baqdaan oo ma aragtay aad ilaahay ka cabsootaan ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr idin siina alle asagoo aan wax nooga baahnayn haddana wuxuu leeyahay in tuqridullaha qardan hasana maxaa lidin sameynaa yudaa'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim haddaad ilaahay wax amaahisaan amaah wanaagsan ma Allah amaah nooga baahan may amaahda waxaa lagu yaqaanaa qofka wax buu kaa qaadana waa kuu soo celinaa soo maha marka waa kinaay waxaa lagu leeyahay war ilaahay agtiisa wax geyso bari iyadoo ma aragtay waxay kuu soo noqonaysaa yudaa'ifu lakum waa idin laba laabaya waa laba laab ilaa iyo intuu ilaahay doonuu kuu gaarsiiyaa wa yaghfir lakum dunuubtiinana waa lagu dhaafaa waxay ka mid tahay min fadaa'il as-sadaqa fadaa'isha sadaqada waxaa waaye dunuubtiyaa lagu dhaafaa maalkiyaa lagu sii laalaabaa wallahu shakurun xaliim ilaahayna waa midka adoomihiisa ku shukriya oo haddana dulqaadka badan marka sadaqada wax la soo koobi karo iyo ma aragtay wax maalin lagu soo ekeyn karo ama wax mawduuc lagu soo ekeyn karo ma ilaa ilaahay wuxuu siiyaa waa qof uu ilaahay u naxariisto waan garanaynaa saxaabadeeni ridwaanullaahi calayhi ma aragtay khulafaa ur-raashidiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu yiraahdo duulaamadii hala soo bixiyo ay keenayeen cumara wuxuu keenay nisfu maalihi keenay soomahan abuubakarna wuxuu keenay maalkiisiyo idulu keenay markaasuu yiri maxaad uga soo tagtay ilmahaaga Allah iyo rasuulkiisa uga soo tago jir Allah iyo rasuul Umar waxa islahaa yiri maanta hadaad intaan keentay wax ka hormarsan male wax badana wuxuu yiri Abuubakar kula tardan markii dambe waxaan go'aansaday yiri inaan Abuubakar laba tartaminba Abuubakar ciyaar ma aha waad garanaysaan xaadisatul ifki umuna Aisha markii lagu been abuurtay dad kamida dadkii asaga uu gacanta ku haayay oo uu wax siinaayay oo ma aragtay masaakiinta ahaa ayaa kamid ahaa markaasuu yiri ma sidaan uba yeelay waalidnima qaaday waxa ma siinaa yiri ninkan gurigayaan ba ka erinay ilaahay muxuu leeyahay wala ya'tal ulul fadli minkum wasi'a an yu'tu ulul qurba war dadka qaraabada iyo sadaaran inuu yiri ilaahay oo dadka idinka in kamid ah
oo fadliga iyo nimcada iyo dheeraadka ilaahay siiyay inay siiyaan dadka maarta ulul qurba iyo wal muhaajiriin dadkan soo hijrooday ilaahay dartiis u soo hijrooday wal yasfahu ha iska sii daaya oo ha iska dambi war miyaadan jeceen alaa tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ilaahay inuu idin dambi dhaafo oo ilaahay idin naxariista miyaadan jeclayn iska sii daa Abu Bakar waa ooyal yiri ilaahu waa jecluhu yiri in la dambi dhaafo sidii isaga cafiye marka wax la soo koobi karo iyo ma aragtay meel lagu soo aruurin karo maaha marka fadaa'ilu sadaqa waa wax aad u wanaagsan kow iyo labana ay ahayn shay kasta oo alla dartiis u baxsatay iyo ikhlaas hatta shaqo tamrawaatu nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ku lahaay ma aragtay waxay ku noqonaysaa adiga kayd iyo dukhri iyo qardi iyo amaah iyo wax meel ku yaalo oo maalin loo dhibaataysan yahay oo loo baahan yahay oo la ixtaajaysan yahay midka maanta aad siinayso aad oga dhibaato badan tahay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu anfacayo marka sadaqada ciyaar ma aha amaakinta lagu bixinayo ciyaar ma aha laana maalkana ilaahay nasiyay waa ibtilaa waa imtixaan waxaana la fiirinayaa kayfa ta'mal sidaan ugu amal falayno ana la fiirinaya ma ku shukrinaynaa oo ilaahay ma noo siyaadinaa maya ma lagu kufrinaayo cagsigeeda oo waa la is-imtixaanaya maalkan ilaahay ku siiyena nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la yasalu qadama abdi yawm alqiyamati hatta tusalu an arba'in afar arimood illa laga weydiiyo su'aal u taagnaanaya su'aashu u taagnaana maxay tahay cimrigiisa la weydiina cimrigaaga maxaa ku soo qaadatay dhalinyaranimadiisa la weyna dhalinyaradnimada maxaa ku soo dhameysatay waxa la weydiinaa maalkiisa la weydiinaya maalkaaga waxa la leeyahay min ayna anfaqt war xagee ka keentay war min ayna iktasabta xagee ka soo kasbatay xagee ka soo shaqaysatay wa min ayna anfaqt xagee ku bixis waa lagu weydiinaya meeshaan marka maalkan waxa adiga tasarruf isaga leedahay ma aha adiga waxa tahay qof mustakhlif ah oo loo dhiibtay amaana loo dhiibtay amaanada waa lagu waardiyeynaya amaakinta iyo meelaha aad ka keenaysa maalka waa lagu ilaashanaya maxaraan iyo xalaal ma kala soo cilmiya wixii ku gala wixii ku cunaba waa la cunaa waa isku soo dartay miya ribada iyo wixii laga xarimo waa isku soo dartay miya qishki iyo xaraanti waa samaysay miya haye xagee ku bixisay amaakinu khayr ma ku dhiibtay meelaha wanaagsan ma ku bixisay dadkii u baahnaa ma siisay mase ma aragtay waxaad ku bixisay meelaha xunxun iyo meelaha aan wanaagsanayn iyo arka iyo ma aragtay laaluush iyo qurun miyaa ku dhiibtay meel kastood ku bixisaba waa ku qoranta haddaad ka soo kasabtay meel xalaal oo wanaagsan falillaahi alxamd haddaad ku bixisay meel wanaagsan oo sax oo ilaahay raali ka yahay falillaahi alxamd ama inta ka dhaxaysa soo ma aha waa la xisaabtama waliba kii kaydsadana hadhow inta la dhalaaliyo oo shilin loo dhalaaliyo faduuqu ma kanastum li anfusikum ala dhadhamiya waa lagu dhadhajinayaa cadaabay ku noqonaysaa qabrigana maxaa ugu imaanaya qofka maalka kaynsada ee sadaqada ka bixinin ee sakaatu ka bixinin ee waajibaadkeeda ka bixinin waxaa u imaanaya abeesooyin ruugaayo maxaa yeelay awaamira lagu sii xoolahan waxay ahayd wax lagu ilaashanay ay ahaayeen adiga ku noolow ilaahay baa ku siiyay noloshaada xayaadkaada ma aragtay qawaamkeeda ahayd waa waxaad adiga ku intifaacaysay laakiin waxaa kaloo lagu waajibeeyay inaad sadaqadii waajibka ay zakaadkiina ka bixiso sadaqadii tadawuca iyo riximka iyo qaraabada iyo ixtaajiga dadka muslimiinta xawaa'istoodina aad ku asturto labadii markii adiga aad diiday ood aruurisay ood guri dhistay ood kaydisay ood kansi ka dhigtay oo dahabkii iyo fidadii iyo gaarigii iyo adduunkii wax walba aad kaydisay oo nimcadii aad dhigtay sheekho waa ka tagtay laasim inaad calfanaynin waa ka guuraysaa si kastood u aruurisaba markaad guurtayna qabrigii waxaa ku yaalo wixii aad adiga dhigatay oo ah inaad ilaahay jidkiisii ku bixinin inaad ilaahay awaamirtiisa ku bixinin inaad ilaahay wuxuu uu kaaga ma aragtay jideey aadan samayn maalkaagina ay isaga intifaacayaan dad aanan ma aragtay macna aanan lahayn Abu Darda saxaabi wuxuu ahaa adduunyada dhan iska riixay Dimashq waxa looga dhigay waali markuu u tagay reer Dimashq uu la hadlay uu la tacajabay guriga dhiska sara dhiska adduunyadii iyo tamattu iyo raaxa isaga laana wuxuu ahaa saxaabadii awliyaadku uu la yaabay markaasuu yiri ya ahla Dimashq reer Dimashq maxaan idin arkaa uu yiri adduunyo ina qaabisheen maxaan idin arkaa inaad dhisaysaan
ما لا تسكنون وحين ندقينين wuxuu ka wadaa maalin baad ka guuraysaa sooma maxaad u yididiilaynaysaan wixiinan gaaraynin adduunyadan inaad soo koobto oo hantida ugu badan qaadato oo nimcada ugu badan hesho waxaad gaari karta ma yididiilo say kuu hayso waa ku dhimanaysaa marka maxaad u dhisayseen wixiinan degaynin maxaad u yididiilaynaysaan wixiinan gaaraynin wuxuu yiri haadihi diyaaru caad wa thamuud reer caad iyo reer thamuud guryahoodii yaa kuna aan ahay yaa iga siisanaya dirhamayn 2 dirham war yaa iga gadanaya فبكى القوم وأوين إلا مقالدي درف با لغا مقل أوينتي مركز الدنيا ساس أي أقيم درنت حدي إلهي سبحانه وتعالى هنتذا ونمعه حوله ونمعه نمعد إلهي كسيينا إنه لغو شكري أقباهن أوامر تادي يودوينكي اكتسابك لربي مكسوا كسبتي خير ودوينكي يجدكي لربي مكوبحيسا خير قرابدي مكحريريس dadkii baahnaa masaakiinta ma ka quudisay dhibaatooyinkii dadka ma arka muslimiinta ah wax ma kaga dabooshay ilaahay wuu khayr adduun iyo aakhira maalkaasna wuu ku barakaynaaya ajashaadana wuu ku barakayna umrigaada wuu ku awlaadaadana wuu ku barakaynaaya hatta ka farac ilmahaaga waa lagu dhowraaya laakiin qofka markuu baqiil yahay oo uu sadaqa maanac yahay oo uu khayr lahayn eelkiisana way ka go'anta naftiisana way ka go'anta aakhirana إلهي سبحانه وتعالى هدو عفنين وحا ويالا وحايتا وعقاب مركا فضائل الصدقة وحيالا آد أفر بدن أو آد قيمة بدن وحلا سوكو بكرنا معها إلهي وحا ويدي سنينا إنو نقرقو تدكي ما عرقتاي وحي إلهي قعنتو ذا سوقلي وظيفة خيرك أي شرجك خيرك أمريا إلهي إنو نقرقو تدك بحصة وحق مسلمين تأي حق ولا لهود إي حق أهلك أي كل يهين جود أهان يقار أهان بقرت إلو إلهي نقرقو إلهي دعواتكنها أجيبه إلهي ذنوبتنها دافو إلهي وحا aan leenahay qowlkeen iyo ficilkeenna iswaafajiyo إلهي islaamka kor ha ka dhigo إلهي muslimiinta ha mideeyo إلهي quluubtooda isu soo dumo إلهي balaayada iyo imtixaanaadka iyo culeysyaha haysta ka dulqaado khaasatan wa caamatan Allah na caafiyo awlaadi iyo ahalka iyo usrada iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo dalka iyo dadka iyo diintaba Allah noo hagaajiyo وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدت مهسنتين ساد نوسو أجيبتين ونو دقيستين ميسانكين حسنات كان الله إدين سارو كلنا الله نو سارو الله نأقبله مالك السؤون جوغنا دعوذين الله أجيبه إلها ويدي سنينا إلهي نغيالو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته